السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan qormadan gaaban ku eegi doonaa taariikh kooban oo aan ugu talagalay in aanu kaga hadalno madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo geeriyooday 17kii bisha June 2019 haddaba madaxweyne Maxamed Mursi wuxuu ku dhashay magaalo la dhaho Al-Adwa oo saaran webiga Niil ee gobolka Sharqiya sanad markay ahayd 1951 wuxuu ku barbaaray halkaasi isagoo ku qaatay waxbarashooyinkiisa hoose dhexe sare ilaa quraanka oo kala duwan wuxuu culumta injineeriyada ka bartay jaamacadda Qaahira sanad markay ahayd 1970 kadib wuxuu shahaadada PhD ka soo bartay jaamacad ku taala dalka Mareykanka madaxweyne Mursi wuxuu soo galay saaxada siyaasadeed ama lagu dhaxarkay sanadii 2000 ilaa 2005 ka halkaasi oo uu tartamayay xildhibaan inuu noqdo sidoo kale waxaa saaxada siyaasadda uu aad uga dhex muuqday doorashadii baarlamaanka ee ugu horeysay kadib markii xilka laga tuuray Mubaarak sanadii 2011 ikhwaanku waxay sameysteen xisbi ay ugu magac dareen xurriyadda iyo cadaaladda waxay ku guuleysteen kala badh kuraasigii baarlamaanka Mursi ayay u doorteen inuu hogaamiyo xisbigaas siyaasadeed kaas oo ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo inkastoo uu hogaamiye ahaa waqti dheer haddana waxaa loo arkay in uu ahaa nin aamusan oo dadka aan soo jiidan karin Mursi ayaa u ballan qaaday dadka cadaalad iyo horumar inuu Masar oo dhan hogaamin doono inkastoo natiijada doorashada aad la iskugu dhawaa dadka isaga dhaleeceeya waxay sheegeen in uu ku guuldareystay inuu wax qabto sanadii uu hayay xafiiska hase ahaatee garabka ka soo horjeeda garabkaasi oo ah garabkii taageersanaa madaxweyne Maxamed Mursi ayaa sheegaya inuu sanadihii uu hayay ama muddadii sanadka ku sineed uu hayay xisbiga iyo dalka oo dhan madaxweynaha uu ahaa inuu qabtay guulo waaweyn kuwaas oo khaas u ah dalka Masar iyo gaar ahaan muslimiinta oo dhan sidoo kale Maxamed Mursi waxaa la hor keenay maxkamado kala duwan kadib markii la inqilaabay 2013 June waxaana lagu xukumay xukumo kala gedisan sida dil iyo xabsi daa'im hase ahaatee maxkamadda sare ee Masar ayaa kadib go'aamisay in la joojiyo dilkii lagu xukumay madaxweyne hore madaxweyne Mursi waxayna amartay in dacwad mar kale loo qaado 17kii bishan ee ku jirno ee June 2019 ayuu la soo hor keenay maxkamad sida ay garsoorayaasha qaar sheegeenna wuxuu aad ula dooday muddo gaaraysa ilaa 20 daqiiqo madaxweyne Mursi garsoorayaashii ku fulinayay xukunka hase ahaatee waxa halkaas uu ku geeriyooday madaxweynuhu xanuun ayaana qabtay waxaana loo qaaday isbitaalka oo ku geeriyooday intaasi waxaynu ku eegaynay qormadii aynu kaga hadlaynay taariikhda kooban ee madaxweyne Mursi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan qormadan gaaban ku eegi doonaa taariikh kooban oo aan ugu